عليكم ورحمة الله وبركاته ولالها سو دوادا دمانتين مانتا waxaa noo casuuman oo ila socota janaalkan arki doontaan walaashtiin unique hooyo masha Allah unique hooyo soo dhawo walaalaha janaalka maamulna ku xiran unique hooyo ayaa salaamayso gacmo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماما منى فاميلي وايد والسلام ميل بدونك جوكتين كل جيسا وذا دنتيهين ما أنت قضب كايدي ودنو وحويان وقضب آد ياد ونكسن ما شاء الله تبارك الله جزاك الله يونيك هو بوقشدا aan soo boqotay walaalaha ku xiran maamulna ajalka horeeya jirto oo unique hooyo mataqaana janaalkeeda ka arki doontaan oo same topic topic ka hadalnayna waxa uu yahay sidee baa ku dhisi kartaa ilmahaaga kalsoonidiisa haddana halkan waxaan kaga hadlaynaa sidee baa mataqaana maxaa ku garan kartaa ilmaha kalsoonidiisa in ay dilan tahay ama ilmaha inay kalsoonidiisa ay ka dhuntay oo dadku ku dhaxgal lahaa sidee baa ku garan kartaa agile self confidence or self esteem waxa loo yaqaano ayaan halkan aan kaga hadlaynaa waxyaabaha ku garan karto and also marka introduction ki ama mawduuca hordhiciisi waxaad ka helaysaan janaalka unique hooyo also hadana ajalka ka dambeeyo oo noqon doona sidee baa warkam ooga sameyn doonta ama kor u soo qaadi doonta ilmahaaga kalsoonidiisa stay tuned isagan unique hooyo ajalkeeda ayaa ka heli doonta hadda waxaan bilaaweynaa maxaa ku garan kartaa ilmahaaga self esteemkiisa inay dhisan tahay unique hooyo maxaa ku garan karnaa in ilmaha self esteemkiisa ay dhunsan tahay Soomaaliyeena ka raali ahaada anagoo dhan walaalaheen af Soomaaliyeena ka raali noqda waxa laga yaabaa mararka qaarkood in hadal qaldan aan dhahno Ingiriis aan ku sheegno soo ka raali noqda insha Allah waxyaalaha ku ogaan kartay walaalahay waxa waaye cunugaaga inuu uu yahay self confidence maxaa lahaa inuu cunugaaga kalsoonidiisa ay hoos u dhacsan tahay waxyaalaha ku garan karto waxa waaye cunugaaga behaviorkiisa okay cunugaaga waa taqaanaa cunugaaga marka si uu act gareeyaa moogtahay mararka qaarkood cunug iska dhigay cunug yar amal act gareenayo silly oynayo cunug weyn u jeedo school age ka oynayo waxyaalo badan arkaysaa wuu xanaaq badan yahay guriga wuxuu rabaa asaga inuu noqdo ninkii ugu horeeyay waxyaalo badan baa aad ku garan kartaa cunuga inuu confidence ay low tahay wuxuu helayaa dad hoos u sii dhigayo haday ilaaho ma macluumaad xataa noqoto dad hoos u sii dhigayo ayuu la kulmayaa markuu guriga yimaado marka adigana ugu sii dartay qaylo iyo ina hoos u sii dhigtid cunugaas muxuu dareemayaa maamuna cunugaas wuxuu dareemayaa ama waxyaabaha hooyada looga baahan yahay inay ka fiiriso cunugeeda waxa ka mid cunuga in uu asaga inuu isyareeynaayo meaning waxaan ka wadaa asaga in uu isliidaayo asaga in uu isugu yeerayo inuu stupid yahay inuu isu qaadanayo inuusan waxyaabaha qaar uusan sameyn karin in uu ku sheegayo dadka kale inay smart yihiin ama ka caqli badan yihiin ama ka karti badan yihiin in marka uu si xaasidnimo oo la dhaqmaayo carruurta ka yaryar in ay ka dhumayso little bit maadaama asaga ixtiraam uusan haysanin inuu waalidka ixtiraamo inuu ilmaha ixtiraamo inuu waxyaabaha guriga yaalla ixtiraamo inay ka dhumayso and also cunuga markii uu wax sameynayo durba waxa u dirtaba ama waxa uu sameynayo ama wax iskuul ku saabsan ha ahaato ama wax life skills ku saabsan ha ahaato inuu dhaqso wixii haday ku adkaadaan uusan challenge uusan rabin inuu galo oo dhaqso uu give up uu sameynayo sababtoo asaga nafsadiisa wuxuu isku yaqaanaa wuxuu isu yaqaanaa loser wuxuu isu yaqaanaa qof oo aan waxba qabsan karin oo kale ayuu isu yaqaanaa back in his head oo maskaxdiisa ay siinaysaa marka give up fara badan uu muujinaya so cunugaaga markuu yar yahay aad self esteemkiisa dhistid markuu banaanka tago cunug ama macalmad xataa si xun ula hadasho oo hoos u dhigto uu guriga yimaado oo adigina aad kor u qaadida tira hooy wiilkayga fiicnaayo hooyo kaalay macaane maxaa dhacay maanta iskuulkii waxa laga yaabaa cunugaas inuu ku furfurto ku dhaho maanta macluumaad saas ila hadashay marka adigii hooyadii ahayd waa ina ahaataa meeshii oo ka heli lahaa wanaag marka adiga ku tiraahdo hooy waxa taa wiil fiican oo boqor ah oo kan ah marka ha dhageysanin qofka hoos ku dhigay waxba yahay weeyaan cunuga kalsoonidiisa dilan tahay kuma maqlayo wax walba aad u sheegtid oo wanaagsan kuma maqlayo because asagii wuxuu isku malayaa inuu wax xun yahay soo maamuna markii ilmaha iskuulka laga soo dilo oo gurigiina lagu dilo labadii dhinacba laga dilo cunuga muxuu ku sugan yahay actually cunugaas wuxuu ku sugan yahay inuu waxyaabo fara badan uu dhex
galo mustaqbalka marka uu weynaado ruux walba oo u yeera ayuu raaci karaa oo soo hadal macaan ama raxmad ama inuu jecel yahay ama inuu ruux karti leeyahay u sheega wiil iyo gabar wuxuu yahayba ayuu mataqaanaa u fududaanaya in uu hogaamiyo marka taasa waxay ku qasbaysaa in uu kelmadaha dadka kale ay sheegayaan ama afkaarta qofka kale uu qabo la saxnaato sababtoo gurigiina cunuga wuxuu ka maray dhibaato ayuu ka maray oo waxba baranaysid adiga wax mataqaanid imtixaanka waa ku dhacdaa intiisa xumeed negative-ka ayaa mataqaanaa la soo saaray marka iskuulkiina negative-kiisa ayaa la soo saaray marka haddii la dhaho wiil fiican baa tahay bax oo mataqaanaa daroogan soo kala gad haddii la dhaho waxay la noqonaysaa awesome waxay la noqonaysaa fikrad fiican ay la noqonaysaa wuxuu ka dhiganayaa qofkaas qof oo soo dhaweeyay camal uu ka dhiganayaa marka waxyaabo fara badan oo adag iyay ilmaha u horseedi kartaa marka ay kalsoonidooda dhunto soo hooyoy ha noqonin hooyada ilmaheeda dadka gacanta u geliso intaa dadaali karti cunugaaga markuu yar yahay kalsoonidiisa kor si wanaagsan u dhis markuu iskuulka aadana intaa sii dili lahayd inaad dhistid waaye ha canaananin ilmaha horta hore annaga waxaan aqsanaa wax ku qaylinaa ilmaha run haddii laisku sheego soomaali haddaynu nahay afkeena mararka qaarkood waxyaalo xun kasoo da-o qumayo asbax yahow doqon yahow wax matala yahow waa inaan iska ilaalinaa hadalooyinkaas negative-ka ah haddii aan rabno inaan ilmahana aragno inay future yeeshaan oo ay noqdaan dad mustaqbal leh oo kaale araga haddii maanta aan wareysano hooyooyin ilmahooda successful ay noqdeen hadaladay kuu sheegayso waa hadalladaan kaleeto annagaba aan maqalnay oo noola sheegay soo marka hooyoy ka faa'iideyso videogan aan hadda maanta kuu soo bannaan dhignay aan ku leenahay ka kac hurdada cunugaaga kalsoonidiisa dhis taageer u noqo cheerleaderka hooyadii u noqo number 1 supporterkiisi qofkii oo u taagnaa oo dhahaa yes waad samaysay khatar baa tahay hadduu xataa u dhaco kici waxaad tirahdaa maasha allah you're good hore usii soco waa inaad cheerleader noqotaa hooyoy waa inaad tustaa cunuga inuu wax samayn karo waa inaad tustaa cunuga haddii uu hal imtixaan uu ku dhacay inuusan nolosha dhan uusan ka dhicin it's okay bilow aadmiga wax waa ka laabaan mar walbana qof walba wuxuu leeyahay inuu mar labaad iyo mar saddexaad iyo uu samayn karo marka xasuusi ilaahay subxaanahu watacaala jaanis fara badan uu dhigay raxmad fara badan uu dhigay marka xasuusi cunugii inaa mataqaanaa uu jaanis fara badan inuu haysto inuu yar yahay inuu tuudhar heli karo inuu waxyaabo fara badan oo macquul gal markaas adiga ku noqon kara inaa cunugaaga kor ugu qaadi karto iskuul ahaan nolol ahaan xataa even mararka qaarkood waxaa la rabaa inaa ka hadasho waxaan inay adduunyo tahay adduunyada in laga tagaayo oo mataqaanaa mar walba dadka ay ku kala kormarayaan qof walba hadduu qofka uu wax haysto qof kasii badan unbaa jira marka xataa qaneeco ahaan inaa cunugii barto ayay noqonaysaa insha allah biidnillahi alkariim siyaabaha overcome ooga noqon lahayd oo ku caawin lahayd ilmahaaga kalsoonidiisa ku dhisi lahayd iskuulkiisa ku dhisi lahayd noloshiisa ku dhisi lahayd biidnillahi baari waxaan kaga hadli doonaa qodobadan ka fiiri haddii qodobadan hadda aan kasoo hadalnay ilmahaaga ku dhex jiro please nala soco hooyo Soomaaliyeed kulliga waa isu wada baahanahay unique hooyo janaalkeeda ayaa waxaan soo dhigi doonaa siyaabaha cunuga u kordhin karto ama sideeba cunugaaga ku noqon kartaa saaxiibkiisa koowaad ku noqon kartaa oo mataqaanaa kalsoonidiisa ku dhisi kartaa hooyo cajiladana walaalaha maamuna ku xiran iyo walaalaha ku xiran maam unique hooyo waxaa sameynaysaa la wadaaga walaalihiina kale ee Soomaaliyeed خير إذا رجعنا unique so walaalaha mataqaanaa question hoos noogu soo qora more questions soo weydiiya insha Allah waa soo sameynayna qodobyadan xataa haddii aanan u sheekaysanaynin channeladen waad ka helaysiin more videos oo ka hadlayo tobicyadan iyo tobicyo kaleba kasii wanaagsan insha Allah hadduu rabbi idmo oo caruurta ka hadlayso tobicyo waaweyn aan kasoo hadlaynaa ilaahay noo barakeeyo ilaahay noo dhowro annagoo dhan intii ummadda nabi maxamed oo dhan caruurtooda ilaahay hawada dhowro meel ba adduunka joogtaan Soomaaliya dhan waxaan rajeynayaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu caruurta noo dhowro because caruurteena Soomaalida waa dhammaanayaan left and right ilaahay subxaanahu wa tacaala noo xifdiyo meel alaali meesha ay joogaan boolaalaheen aad iyo aad idin salaamina assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
ha iloomin thumbs up subscribe hadaad channel ku cusub tahayna maamuna channelkeeda go to Unique Hooyo too. Salaamu calaykum.